weligay ma arag aabbahay oo dad cunto la cunaya ma arag cunto loogu yeedhana cunayana ma arag makhaayad isagoo galayana ma arag halkan mashruuca biyana ma dee waa dhulkan biyo ma yaqaano beer lama yidhaahdo beer hanaan biyo lahayne haddaad mashaariic iyo mashruuc samaynayso meel ilmihiisa meel biyo leh wax ka beera wax aqalana haba yaraatee ma dhisanin ilaahay roobkiisa halkan halkan buu ku shubay maalin halkaas buu ku shubay halkaas saamul baa aad u qaabilay magaalada reer saamul baa aad u qaabilay labistu thawb raja والناس قد رقدوا وبت أدعو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل خائبة ومن إليه لكش في الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد تاريخ علمada daweelsan loo toolin tagtadooda laga qorin lagu dhiginta waad saaxa waxaa guri tog weyno sooyaal ku taxayay waa tiriga culimadu nebigu waa tilmaamo waxay taagayiin boos ruusu sii tagtee hore. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana wanaagsan dhammaanba daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeennii caweyska culimada oo kalkan aynugu kuurgeli doono noloshii taariikhdii iyo waxqabadkii qaar ka mid ah haldoorkii culimada soomaalida. kulankan ayaa waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa kuma ayuu ahaa sheekh cali jawhar. kadib taarikh nololeedkiisa ayaa waxaa barnaamijka caweyska culimadu uu furi doonaa baalal ka mid ah noloshiisii, cibaadadiisii iyo waxqabadkiisii. intaynaanse barnaamijka gelin kuma ayuu ahaa sheekh cali jawhar. sheekh cali boqorre warsame oo loo ogaalogaa sheekh cali jawhar ilaahay ha u naxariistee waxa uu ku dhashay tuulo galbeedka kaga beegan magaalada boorama sanadkii 1829. sheekhu waxa uu qur-aanka ku bartay isla jeerkaasna ku xifdiyey qur-aanka baadiyihii uu ku dhashay oo ka tirsan magaalada boorama ee gobolka awdal. sheekh cali jawhar ayaa kadib markii uu qur-aanka dhameeyey u rixlaystay magaalada herar oo ahayd wakhtigaasi xarun aqooneed oo loo doonto barashada aqoonta diinta, waxaana uu ku dhammaystay waxbarashadiisii hoose. isla jeerkaasna waxa uu sheekhu si fiican u bartay luqadda hereriga, waxaana uu kula kulmay culimo badan oo uu ka mid yahay sheekh cali shaqlane, sheekh yuusuf dubed iyo sheekh xaaji nuur. kadib markii uu aqoon badan ka dheefay magaalada herar ayuu sheekhu u safray dhulka barakaysan ee maka iyo madiine isaga oo ka baxay magaalada zaylac, waxaana uu dhulkaasi barakaysan kasoo qaatay aqoon badan. muddo badan oo uu sheekhu wax ka baranayay dhulka barakaysan waxa uu muddo kadib sheekhu dib ugu soo noqday dhulka soomaalida isagoo soo maray dalka yeman. muddo dheer oo uu sheekhu ummadda waxbarayay ayaa waxaa ka aflaxay arday badan oo markii dambe noqotay culimo waaweyn oo bulshada anfacday, waxaana ka mid ahaa ardaydii uu soo saaray sheekh cali jawhar ilaahay ha u naxariistee sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar oo wiilkiisa, sheekh cumar tukaale, sheekh axmed sheekh ibraahim, sheekh maxamed cabdalla soomaali, sheekh maxamed macalin xasan, sheekh maxamuud awsuufi iyo qaar kaloo badan. noloshiisa intii dambe sheekh cali jawhar ilaahay ha u naxariistee waxa uu iska galay nolol adduunyo ka fog oo cibaado iyo kelinimo u badan, waxaana uu aqal ka dhistay buur u dhow magaalada boorama oo uu ku cibaadaysan jiray. maalmihii noloshiisa u dambeysay ayaa waxa uu sheekhu safar xaj ku tegay dhulkii barakaysnaa ee uu yaraantiisii kasoo qalin qaatay, isagoo marar badan xajay. haddana xajkaasi waxa uu ahaa wixii uu dambeeyey noloshiisa. sanadkaasi oo ahaa 1972 soo noqodkiisii kadib sheekhu waxa uu ku geeriyooday dalka jabuuti isagoo safar ah, waxaana salaada janaasada ku tukaday sheekhii muftiga dalka jabuuti sayid cali saqaaf oo ay saaxiib dheer ahaayeen. kadibna waxaa diyaarad gaar ah lagaga soo qaaday meydkii sheekha dalka jabuuti, waxaana laga soo dejiyey gegida diyaaradaha ee magaalada hargeysa. isla markiibana waxaa gaadhi loogu qaaday magaalada boorama, waxaana sheekha lagu aasay xabaalaha u dhow garoonka salaada ciidda lagu tukado. waxaana la fuliyey dardaarankiisii ahaa inuu jecel yahay in lagu aaso xabaalaha uu ku aasan yahay aabihii boqorre warsame. aab horta wuxuu ka mid ahaa culimmadii waaweyneed ee dalka soomaaliyeed ayuu ka mid ahaa, khaasatan intan iminka somalilan la isku yidhaahdo iyo inta soomaali galbeed iyuu aad aaba mashhuur ugu ahaa. taariikhda culimada daweelsan loo toolin wuxuu u badnaa weliba soomaali galbeed buu diraasaadkiisa u badnaa, magaalada jigjiga ayuu u badnaa. xayaatadiisu markiisii hore wuxuu ahaa cilmiga qur-aanka, maktabkii qur-aanka kolkuu ka baxay kabacdi magaalada harar la yidhaa ayuu cilmiga ku bartay intiisa hoose, weliba luqada hareriga ah ayuu ku bartay. muddo badan buu halkaa joogay. kadibna wuxuu baxay jiidda soomaali galbeedda faafan iyo intaasoo mashaayikh waaweyn ay joogeen ayuu haddana waxbarashadiisii ahayd.
haddana ilaa mandiqada ogaadeen iyo la yidhaha jiidda qabardahariye aaggiisaasi jiiddaasi mashaayikh waaweyn kala kulmay ka bacdi wuxuu aabba u baxay markii dambe almamlaka alcarabiya sacuudiya ayuu baxay waqtigii dowladdii hore ay dhisnayd iyo weliba la kulmay xaramka ayuu dhexdiisa wax ku akhrisanayey isagoo shurdada xaramkana ka mid ah ayuu haddana xaramka dhexdiisa wax ku akhrisan jiray mashaayikhda halkaa uu ku akhrisan jiray waxaa ka mid ah ustaad maxamed xuseen cali almaalik sheekha tamriin dulaabka tadriib dulaabka leh naxwaha mashaayikhdiisii waaweyn ka mid ahaa kadalika sheekh calawi almaalik yaa ka mid ahaa sheekh kaloo soomaaliya oo zaahid ah sheekh maxamed cayngal loodhan jiray isaga naftiisa halkaasuu kula kulmay sheekhu kitaabka irshaadka iyo halkaa noogu akhriyay buuri ka bacdu sheekhu markii dambe wuxuu u soo wareegay yaman buu u soo wareegay wuxuu halkaa kula kulmay qaadigii weynaaye qaadi shawkani tilmiidkiisii oo mucamar qaadi shawkani tilmiidkiisii oo mucamar ah sheekh zabiid la yidhaahdo ayuu kula kulmay shawkani waa ka saaxib alfatx alqadiir kale markaasuu fiqiga oo khaasatan kitaabka manhajka qaadi zakariya iyo cilmiga mantiqa iyo xisaabta ayuu sheekha aada ugala kulmay kadib buu aabba soo noqday waddanka kusoo noqday fadhigiisii hore wuxuu degey nawaaxida gebili oo degaanku ou ahaa ayuu aabba degey kadibna wuxuu u wareegay hargeysa ayuu u wareegay muddo 10 sanadooda ayuu hargeysa mudaris ka ahaa nawaaxidan booramo haddana dib ugu soo noqday markii dambe wuxuu u wareegay rasmiyan ugu wareegay magaalada jigjiga halkuu cilmiga aada ugu faafiyey oo magaalada jigjiga ayaa ahayd xagga cilmiga raxmatullaahi tacaala caleyh khasaa'iskiisa waxaa ka mid ahaa ma jeclaysan jirin culummada kolkay kutubta akhriyayaan tafsiirka bilowda ama minhaajka bilowda ma jeclaysan jirin wuxuu odhan jiray anuu hoostan ka soo bilaabi intaa hoostan uga soo bilaabo ilaa in sare aan u dhameeyo oon kalsooni kolkaa ku qabo ciddan waxay ga akhrisanaysaa inay yihiin cid maxay ahayd fahmaysa waxaan akhriyayo marka haddii fiqiga tahayna abjujaacu ka bilaabi jiray hadday carabiga tahayna mukhtasaraadka hoosuu ka bilaabi jiray ilaa halka sare uu ka gaadho abu khasaaskiisa waxaa ka mid ahaa culummada soomaalidu berigii hore tafsiirka qur'aanka luqadii culummadii hore laga dhaxlay unbay taqliid ahaan u qabsan jireen maalan wuxuu ku sugnaaday halkaasoo ku sugnaaday oo kale kelimaadka ka mid ah wuxuu dhex joogaa unbuu odhan jiray ama wuxuu ku jiraa oo luqadii dadkeena waqooyigu ay ku hadlaan intan soka ay ku hadlaan luqadii naqliga ahayd ee culummadu ay iska qabanayeen xagga koonfurta qofku uu ku macnaynayay kelimadii culummada koonfurta uu ka maqlay uuna ku maqlaynayay uu ka bayri jiray waxa maaluufka ah ayuu ku macnayn jiray markaasuu mashhuur aad ugu noqday kitaabka tafsiirka qur'aanka ayuu aad mashhuur ugu noqday muddo badan kolkuu jigjiga ka bacdi joogay kolkii dambe wuxuu aabba u bayday naaxiyata tasawuf buu u bayday tasawufkii saxiixa ahaa inuu dadka badayaa dhex gelin jamaacaadka salaadii waxyaabaha maahay gees u noolaado waxaan jamaca salaada ahayn dadka dhexgelkiisa khasaa'iskiisa waxaa ka mid ahaa ninkay aabbahay wuxuu dhintay anigoo qiyaasta 30kii madaxa la galay ama ahba ayuu dhintay weligay ma arag aabbahay oo dad cunto la cunaya ma arag cunto loogu yeedhana cunayana ma arag makhaayad isagoo galayana ma arag halkaa uu degan yahay iyo masjidka wax uga dhexeeya aanay jirin qofku hadduu idhaah inaka aan xusayna aanu aqbalin waanu yeedhnaa daa uu yidhaahdo halkayga aqalkayga waxaa yarii keenu yidhaah yani qaanic buu ka ahaa xagga adduunyadana qaanic zaahid ah iyuu ka ahaa isaga oo aad garanayso siduu waddanka soomaaliyeed caam ah ugu ahaa oo adduunyada sidaa loola daba ordaayo miyaan masjid ahayn kuma degayn hargeysa kolkuu dego meeshuu magaaladu tegaba masjidka daaradiisa unbuu ku degayey tijaarta waaweyn baa hargeysa oo kale u yeedho kaala halkan aan ku dejinayna ma aqbalayn midna daaradda masaajidka unbu seexanaya wax aqalana haba yaraatee ma dhisanin aqalna ma dhisanin oo wuxuu odhan jiray mashaayikhdeedii waaweyneed buu mid ka mid igu odhan jiray wixii xayaatadii nebiga iyo saxaabadii ay ahaan baynu ku noolaanaynaayo aqal yaroo gerged ah oo lugahaaga un ku leeg mooyaane aqal kale inaynu dhisay adiraad buu aabba wuxuu ka tegey isagoon haba yaraatee dadkaygaa waaweyne waxaanu ku dhalanay aqalla dasaa baan ku wada dhalanay dasqoolidii cawsta ahayd ee dasooyinka yaanu ku wada isagoon aqal daara iyo gerged midna aan dhisanin ayuu maxay hayday ka tegey halkaa buurta ayuu ku lahaa qol yaroo 4 mitir ah oo qalwo kolkii hore ahayd ayuu markii dambe jiingad saaray oo ku litanba joogay markii dambe xataa uu ka tegey magaalada buurta hoosteeda ayuu gergad yar ka dhistay oo 4 tiir ah oo camuudi geedihii sogsogtay uun la dul dhigo oo roobka kolkuu da'ayo aan waxba roobka ka celinaynin darooshinta roobka camuudi yar la dul dhigay kolba dhanka aqalku ka darooshameynaya maahe
dhinaca kaluunbuu uga yar wareegaa muddo sanad iyo ziyaado ah ayuu deganaan jiray halkaa buurta uu u deganaan jiray aabba waxyaabaha lagu kanto waxaa ka mid ahaa xagga cibaadada wax dee kula mid ahaaba u yaraa habeenkii oo kale labada kolkay tahay kolka hore u seexan jiray horta caadadiisa shaayigu kolkuu tukado wax yar joogo kolkaaba u seexan jiray 12 wixii ka dambeeyay uu iska sare fadhiyo ilaa subax uu ku tukanayo subaxa kolkuu tukado wardi buu akhri jiray ilaa 8 in yarba hadana isku qaban jiray saacad 9 ilaa 10 intaas uu yar jiifay waqtiyada ugu nashaad weynaa waxay ahaayeen marka la qadeeyo hore u qadan jiray oo ma ogolaan jirin qadadu inay kowdi ku gaadho ma ogolaan jirin mar la markuu salaada ka baxo inuu qadeeyo doon jiray markaas wardiga oo bilaabi jiray wardiga oo akhriyay oo bilaabi jiray tasbiixda tahliisha salliga oo akhri jiray inta ku dhameeyo ilaa labada iyo meelaha joogo ayuu in yar jiifsan jiray casarka marka la aadaamo waa waqtiga ugu adkaydba isaga aanu cidna qaabili karin xataa barqadii buu dadka qof u yimaadeen la sheekaysan jiray laakiin casar kolka laga baxo cidna ma ogolaanaynin inuu salaamo kolku salaamo bas raalli barakallahu fiik kacab oran jiray qofka iyo oran jiray barakallahu fiik oran jiray hadduu wax weydiiyana dadka wuxuu weydiin jiray abaarta buu weydiin jiray marka warna dhulka ka waran dadka sidoo yahay waayuhiisii caynku yahay marka la yiraahdo meesha abaar baa ka taagan la yiraahdo ya ayuu aad iyo aad dadka ula hadli jiray oran jiray dadka hal caawiyo khaasatan aqal baa qof ka gubtay hadii la yiraahdo dadka soo la yiraahdo isoo eego oran jiray aqalka gubtay isoo eeg war in baa aqal baa halka qiiq baa ka baxay ma aqal baa gubtay waan caynkaas magaalada u dhexmari jiray magaalada uga qaadi jiray marka xayaatadiisu sidaas ay ahayd dharka qamiiska iyo go'a uu guntan yahay iyo maro weyn oo kulkul u xilin jiray mooyaan iyo hal shaadh mooyaane shay kale ma yeelanayn haddii aanu waxu keeno ama cid kaleba ay u keento ka cusub buu bixin jiray labada ka cusub buu dad siin jiray kolka la siiyo uu dad range markuu yar mayro uu siin jiray maalintii uu tagay Djibouti u baxayay wuxuu qaatay qamiis iyo go hoosta oo uu guntanaa iyo hal iyo qamiis labaad iyo surwaal labaad oo ku qamiisyanta loo xidhaa labada shay salad yar oo saladaha yar yar ee bacaha maskaladaha lagu taga ayuu ku ugu jiray marka dhaxantu ay joogto buu oran jiray ii soo qaada wax dhaxanta celiya ii soo qaada marka kood weyn oo kale iyo yaa loo keenay dhaxanta kolkay baxdo qof buu siinayay koodka qof buu iyo siin jiray marka xayaatadiisu aad bay yani cibaadadu zuhdiska markii dambe waxaan soo dhaafay markii jijiga soo wareegay xaggan u soo wareegay wuxuu wareegay bari buu u wareegay haddana jida las caanood buu ku horeeyay iyo shaxda buuhoodle ayuu ku horeeyay shaxda buuhoodle uu suurtooy weeyday inuu fadhiisto oo wax ku akhriyo uu suurtooy weeyday laakiin las caanood baa aad u qaabilay magaalada reer las caanood baa aad u qaabilay aan ka xusuusanahay in cali jaamac la yiraahdo uu aad u qaabilay uu magaalada iyo shaqaalidaadooda loo oran jiray dajiyaan laakiin waxaan makansan karin wax joogi kari waayay biyaheedii ay ku dhanaanadii buu kolkaas burca abuu soo wareegay burcu fadhiistay oo muddo 3 sanadood oo kutubtii ku akhriyay isagoo kolka hore ahayd yani inuu ka dhaxtay dadka oo goonidiisa iskaga cibaadeysto laakiin kolku burca yimid oo arkay baahida cilmiga loo qabo ayuu fadhiistay waxaan ugu tagay anigu isagoo burco subaxa kolka laga baxo darsi akhriya 12 kana mid akhriya casarka marka laga baxana mid akhriya بين المغرب والعشاء كتاب وين تفسير كأخرياء عشاء كل خلا جب حنا أجرجة قراء كتاب فقه عمدة صالحة أو أخرياء مدة سنة حسن هاي ببرع حجارسية إلى فن والبا أو أخرياء مشايخ وأوين أي صبح وحكمدها مشايخ الشيخ محمد عمر با كمدها حاج عبد الله الجلد أيها كمدها شيخ عثمان با كمدها شيخ محمد عبد الحرسي وكل كده ما قررنا كده بي يا كمدها شيخ عبد الرحمن شيخ لورنجي سن ogaadeen hayo reer dhagax buuraha yaa isaguna kamid aha marka burcu kulkii dambe ku dambeeyay burcad dabadeed wax kitaab ma akhriin ku soo noqday bas xagan uu soo degay wuxuu damcay inuu jihaadkii kifaaxi ka qayb galo halgankii Soomaali galbeed Shacali Suufi aw jiishtii Shacali Suufi ku jiray inuu ka qayb galo magaalada Allay Badeelaa buu degay laakiin yar xanuunsanayay marka waa raaci kari waayay markaas aan soo qaadnay oo boorama halkan uu yimiday wardigiisu wuxuu ugu badnaa wuxuu iga sheekeeyay sheekhiisa maxay shacab salaan xaaji jaamac mashaayikhdii duruqda horta iyo kamid ahaa la kulmay raggii mashaayikhdii suufiyada la kulmay ee duruqda ee noocii shariicada xambaarsanaa sidii junaydii zamaanihi lagu sheegi jiray oo kale iyo
alimaam ibnu taymiya lagu sheegi jiray cibaadada sidoo ku haya taajudiin subki raggii culimmadii mashaayikhda cilmiga iyo cibaadada labadaba isgarab wadayay iyo ka mid ahaa wardiga wuxuu akhrin jiray awraad badan buu horta subax quraanka laazim buu ku ahaa quraanka subaxiisa khaasatan intii u dambeysay kamaba baaqanayn subaxa quraanka kamaba u baaqan jirin waxaa aad u akhriyi jiray inta badan salliga oo aad u akhriyi jiray tahliisha taxmiidda tasbiixda habeenkiina wuxuu akhriyi jiray asmaa'ul xusnaha dhammaantii oo nadmiga asmaa'ul xusnaha iyo habeenkiina iyo akhriyi jiray iyo yani qasaa'id kale oo fara badan oo ibtihaaraadka yani iyo tadarruc ah oo qofka la seexdaayay aw ooyayo kaa oohinayo iska ooyeyso kolka aad aragto qofkii oo isagii ooyi aad aragto oo qofka joogaayay aw ku darayo marka waxay u badnaa wixii dheer cilmiga akhriyay dheer isagoo wuxuu la barbaaray cilmigana dhiganaya ayuu cibaadadana la barbaaray oo aad iyo aad ugu badnaa salaadana dee waa kaa wuxuu salaadan adu intaan garanayeen dee meel muddo sanadun qol wada gelaynay way jira oo meel degenin wajaale oo kale aan wada degenin oo balaaqada iyo mantiqiya oo ii akhrin jiray iyo alfiyaha oo ii akhrin jiray waxaa u badnayd qur'aanka akhrintiisa oo dharaartii ah iyo salliga nebiga iyo maxaan ku yidhaha tasbiixda tahliisha adkaarta ayaa aad iyo aad rubama waxaa laga yaabaya inuu tasbiixda oo kale ilaa dhowr boqol oo goor tasbiixda aw rogayo yaa laga yaabi kadalika salawaadka oo kale sidaas oo kale iyagana ayuu ku ahaa oo akhrin jiray aad baan u wada xusuusnay war aanu dusha ka wada haynin aad baan u xusuusnay dacwatuka yaa mawlaaya faqbal ducaaya فبلغني ما أرجوه منك الأمانية جرى حكمك المحتوم في كل كائن فضوى لمن أضحى لحكمك الراضية تاسوا كمد لبست ثوب رجاء والناس قد رقدوا وبت أدعو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل خائبة ومن إليه لكش في الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بذل مبتهل إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا ربي خائبة فبحث جهودك يروي كل من يريد يا كمدها وحكمدها أو كله يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن قوله يا من خزائن أمره في قول كن أمر فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى قرعي لبابك حيرة فلن فذت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير فيمنع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع ثم صلاة على النبي محمد خير الخلائق أجمعين مشفع وحكم لها يا من يرى مد البعوض جناحها في ليلة ظلم البهي من الأهيل ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ في تلك العظام من نحل اغفر لعبد تاب من فرضاته ما كان منه في الزمان الأول كام دعوين ابتهالات عين كاسية ومركز يقول بكل كوا آخر أي أكله جلبه جوكسني جلبه أنتوا جوكسن جلبه أو جوكسنه يصير لبض جعمود أو تاج جري يعني قف هذو قف لص هذا يمكن بنت قبض يعني مجرين لكن هذا يبرد هذا قف دمشق ودو مقرأ يا إيه يعني وأرجع حي وأرجع حي يا مركز العبادة كان وها intaa waxaa ka mid ahaa inuu khasaa'iskiisa wax ka mid ahaa in wixii haddii wax loo sheego shay loo sheego waxa uu qofka mudaahano midna aanu aqoonin ee siday tahay mid waliba au sheego ya hadduu dawlad maba dhex gelaynba laakiin iyagaa u iman jiray oo rabbiga halka buurta oo kale ugu tegi jireen qofka u sheegana wixii ay tahay iyo maxay hayday u sheegi jiray khasaa'iskiisa gaarka waxaa ka mid ah calanka markii la qaadanayay oo mashhuur ahayd oo la wada ogaa wuxuu aabba yidhi isagoo dowladnimo ma qaadanaynahaa intaa anu ingiriisku haddaba inaga kicine aan dowladnimo aan qaadanayno aynu weydiisano 200 oo culamo ah oo dhalinyar ah oo masar aanu dirno 200 kolkay soo noqdaan ha kala wareegaan dowladda ingiriiska maamulka dowladnimada ha kala wareegaan hadda taaba yidhaan yeelayn ma kuwan isagoo u tababaray iyo intoon tagi isaga nidhaahna min kuwaynu dhiibnaa dhaami maayaan gaalka inay ka darraadaan mooyaane dhaami maayaan wuu isdhowrayaa gaalku tawxiidka mooyaane dhaami maayaan haddii kuwaasi ay madax inoo noqonayaan ya
anigu ka qayb geli maayo lixdii ilaa 8 bilood buu xaramka ku maqnaa intii calanka la qaadanayo oo dhan 8 bilood kala maqnaa waxaanu kaga tegey oo kaga baxay war ingiriis ay naga tago aan kicino laakiin intaanu bixin kuwan yaanu inoogu dhiibin karaanigiisa badhawalihiisa dhiisigiisa mixiisa yaanu dhiibin 200 oo maamulka dowladnimada inoo qabta oo nawaaxi kulli walba qabto asirka la geeyo oo 4-5 sano inoo soo tababarta kuwaasi ay inoo qabtaan ma isaga wuxuu ku tababaray baynu dhiibaynaa kuma jiro anigu 8 bilood buu xaramka ku maqnaa waagid lama ku yimid baa shaqaalo barka waran baa way fiican tahay waa khayr buu kor dugaalkii naga tagay inagu waxaan isku sheegayna inagu baa wax hagaajisanayne inagu ma wax toosinayne imaka oran wax kale tala kale taala ma jire waanu idin waafaqsanahay waan ayidsanahay laakiin waan toosinayna oo aan maxay hayday dawlad aan barbaarino marka aad buu xaqana sida uga ahaa fanni walba aabuu akhriyay waxa ugu weynaa had iyo jeer aab xoog saari jiray اللغة العربية وحولين جري حبي يفهم يا قف دباتي يكون نقول سابون جري تفسيرك يو حديثك يو فقه كتبتي ووينا هذه اللغة دي عربية أنا قف كبسلين مركا حوج أنت بدن سادي جري علم النحو والصرف والبلاغة أنت أقولك أخريو يا فقهك يو تفسيرك كتابك أصول الفقه أنا جمع الجوامع هو اللي وجا جيجا أقولك بلعبي وبلعبي شيخي شيخ الله نحريته شيخي عالمك هاي يقول نفسه عالم بو هاي شيخ حسن يبريه شيخ حسن إسماعيل شيخ حسن يبريه بكو عامها أيا وحوري عمود دي كتاب يجمع الجامع بو بلابي مركز مشاق عليه كتاب كاب بلابي من عمود ضبنان عمامضها عن لابن نبوي تلاميذ بينون هاي بالإمام شيخ حسن عالم بو هاي بان وين جيل بو لكن كتاب أصول الفقه جمع الجوامع آد علماء ذكرك يوجع على استين مركز فني والبا آد دوح عامكو أها اللغة العربية هي فقهك هي تفسيرك حديثنا انت بدل بلها رمضانك ايو اد واخرين جري واخرين جري صبح يروح بلاب جري كل سيديد او كلا ايو سو اما سغالك سو توس جري وايو habeenkii kulku soo jeedo subax kulku tukado uu yar jiifsan jiray kolka uu jiifsada ilaa sagaalku ku jiray ama ilaa 8 iyo barka meelaha ayuu ku jiray ilaa duhurka wuxuu akhriyay tasbiix iyo quraanka uu akhriyin jiray iyo salaada duxada oo uu laazimo hadhow korka dambe ana qadada dabadeedna waa ka aan ku sheegay wardiga isagu wardigiis aroortiina wardiga uu akhriyay galabtiina uu akhriyay casar dabadeedna aniga ku cilmi ma haleelaynin ilaa waxa dheereyd waqtiyadii kutubta uu akhriyay ama anaga noo akhriyay ama qoliyii horeba iga akhriyay oo akhrin jiray wuxuu ahaa nashaadkiisu aroortiina uu akhrin jiray galabtiina uu akhrin jiray oo ma aqoon cashirkan kaliya aabo darsi kaliya uu la akhriyo caadadiisa ma ahayn كتاب كو أخريه وين أرورتين أخريه عصر كنا أخريه أرورتين أخريه عصر كنا أخريه مركا هو دروس أو أخريه هي عبادة هي صلاة بقى هيدو شأن يسبقوها horta waxa ugu weynaa kamid ahaa wuxuu aaba aad u dareemi jiray meeshii magaalooyinka tuulooyinka ee u maro kolkuu masaajid tooyada ee wala masaajid maleedahay meeshaasi la ilaa mala masaajid hadii la ilaa uu fadhiisan jiray meesha ilaa uu masaajid u ka dhiso oo masjid ka dhiso dadka ugu qaylo oo ay bilaabaan jiida taas oo ka ahaa xagga qabaa'ilka waaweyn hadii dagaaliyo rabshadiyo waxaas ay dhacaan marba waxa jirta Hargeysa laba qabiil oo waaweyn ay isku dhaceen u tagay Hargeysa uu tago labadii qoloba way ka aqbaleen way ka aqbaleen wax arabkiisa Saacid Muuse ayaa mar isku dhacay marka aad buu qayb weyn uga qaatay waxyaabaha uu dareemayo dhinacaynkaas uu gali jiray laakiin xafiisyada iyo waxyaabaha arrimaha ku tacaluqaya waxa iyo ma una dhex gali jirin aad buu ugu fiicnaa arrimaha wixii qabaa'ilka dhexdiisa dhacay igu yeeray buu oran jiray odaydooda igu yeeray buu oran jiray aad buu uga qayb qaadan jiray laakiin waxa ugu weynaa oo inta badan aad iyo aad ilaalin jiray masaajidada meeshii ay masaajid uga baahan yahay oo dhanba ama booramaha haato ama magajigjigaha haato ama intan wajaale ilaa kala baydh ilaa intaba aan garanay meeshii uu arkay buu oran jiray masjidka iga warrama buu oran jiray haddii la yidhaahdo masaajidku uu yar yahay ama wacaynkaa uu oran jiray kolkaaba uu carari jiray wuxuu oran jiray dhisa masaajidka aan dhisno ayuu oran jiray way jirtay oo waqtigan waddankan ka tegay bay ahayd oo arrimo jirjira iyo dadka dhexdiisa ayaa uga tegay bay ahayd ay kolka aanu dib taariikhiisa aan u eego waxaan u arkaa oo sidii aymadii waaweyn ajilada kolkaan eegnay taariikhoodii aan eegnay in kolkay yaani ka badato sheekh hebel weeye sheekh inuu doono meel lagu aqoonin inuu doono مثلا قصة علي إمام إبراهيم بن أدهم أو كان قصديس أو عن كحصوصناي
in ibraahim bin adham uu ka tegey basra iyo meeshii uu ku noolaa uu ka tegey dhulkaa bariga uu u kacay bakistan iyo afghanistan iyo dhulkaasi u kacay oo isagoo ay ku badatay wuxuu u tegayana ay ahayd sumcad magacii ku batay hebel marka horta noocaasoo kale bay ahayd markaasuu doonayay inuu ku noolaado isagoon ciidinaba garanaynin inuu ku noolaado ay ahayd xataa waxaa dhacday inuu qolo yidhi maxay hayday xoolahan idin raacayaa yidhi oo ay yidhaahdeen xaggeed ka timid oo galbeed oo xoolo kale eegi maa laakiin ari haddaad leedihiin waan idin eegayaan arigaasina hadduu barkad aad leedihiin barkad biyaa nin muraxareeraad baan biyaha ku ahaye barkadan ku weysaysto oon ku maydho haddaad leedihiin markaas in oday yidhi anigaaba le barkadan waan leehay arina waan leehay arigaa sumalkaa iyo maqashaa yaryar baad beerta dhexdeeda meel soo oodan oo barkado iyaad iigu eegi laakiin kuma raagin 4 cisho kolkuu waxoogaa 7 kolkuu joogay ayaa nin weyn baa soo maray oo habeenkii golihii la seexday ninkii baa yidhi ninkan muxuu ahaa xalay kacaye wuxuu akhriyayey iyo aan ka yaabay war maaha buu ninkan ciidama maaha maydaan arkayni midabkiisana ay arkaysa siduu jirkiisa u dhisay aad buu la fogeynaa wana aad buu casaa naga casaa anaga oo aad buu casaa arba la moodiyaba xataa kolkuu bariga hore deganaa intaan baadiyaha iyo meelaha kala tegin ma arba baa loo jiray masoo Soomaali ayaa loo oran jiray marka ninkii baa yidhi war ninkani maaha waa nin dawaaf oo iska wareegayay oo nin isqarinayo dawaaf marka aroortii baa waxa dhacday qolo biliisa nin baa meel lagu dilay qolo daraawiishta oo filfos loo oran jiray baa wareegayay kolkaa meeshii lagu urursanaa bay tageen oo nimankii bay yiraahdeen maxaad ku urursantiin markaas nin halkan sheekho aanu moodaynay nin ciidana inuu yahay aanu moodaynay iyaanu ogaanay kolkii dambana nin culimo oo dawaaf oo iska wareegaya inuu yahay kii baanu amba bixinaynaayo aan siyaariya u ururinaayo waanu amba bixinaynaa marka waxa uu yiri bay yiraahdeen waan meeshaan shirno ugu nimido laba goon u badisiinaysaa buuri laas aanud baan tagayaa wana xirta kolkaan tago aanu qalo iyo wan labadii go'ay hore iga duugobay aan iibsado labada baan idinku dacayn tu ku saddexaad idinku dacayn maayo wax yar lacagtii wax yar buu naga aqbalay bay yiraahdeen oo kolkii dambe wax badan kulku nagu diiday aanu niri bay yiraahdeen dadka fuqarada iyo maxay ganiyaba siisiin doontaa aanu niri qoladii dawladii ba biliiskii ba kolkaas soo qaaday oo markuu laas caanood uu yimiday weeye shaxda buu hooda inuu degu damcay culmadii kolkaas shaxda buu hooda deganayd ayaan kolkaa qaabilin laakiin reer laas caanood baa qaabilay laas caanood baa aad u qaabilay magaaladiina uu ka helay oo aad iyo aad u dejiyey laakiin wuxuu yidhi aniga afkayga ii sheegay waxaan kari waayey buui biyihii dhanaanaa oo biyihii baan aabana aad buu ilaalin jiray xagga caafimaadka markaasuu burca u soo wareegay burca kolkaa naasibtay oo u degey sheekh cali waktigaa la joogay waktigani isku maahay waktigaa wuxuu ahaa dee caalim dee sidii asxaabtii oo kale nebigii odhan maayeese dee wuxuu ahaa waxalla wuxuu yidhaahdaa la rumaysanayo waxna sheegayo ah taariikhda culimada haddan weelsan loo toole oo waa taqwo dabadeed aniga abti way ahaayo dee waan ka xishoonayo umaba tegay ugu dambayntii waxaa la yidhi ugu dambayntii inta yar anuu dee ugu dambeeya iga xasuusanayo xajka laga mamnuucay dadka wakti dhoweyd intii sheekhu noolaa horti sheekh qoladii la soo celiyey buu ahaa waxaan ka imiday wajaale waxaan ugu imiday meel dee iminka masaajid noqoto halkaasoo ko iska mawlac ahay halkii baan bal warramo nabada warramo kolkaasu yani bal warran waan soo noqonay buushi wixii kale sheeko aan isla maray aan isla maray oo yaraa xumadaysnaayo halkii dhagaxyar buu sidaa ugu fadhiisto wuxuu yidhi biyaha iigu shushu oo kolkaan ugu dhowaa jirhkii sare dee hagunta ayaa kolkaasuu yidhi axmedow ma arkaysaa biyaha xoorkaa ka dhacay waa xumadii baa kacisay wuxuu yidhi waan ka soo noqonnay xajkii waan ka soo noqonnay lacag yar baan haystay lacagtii baan doonayey inaan dee meergeliyo ila tali inaan halkaa qulujeed berked ka sameeyo iyo inaan wajaalo meel yar waa dhulkii dee wada gergedaha aanan fiicnayn meel yaroo dee aan ka dhiso waxaan idhi dhisma wajaala meel kama baahnee miska jaamicii aan ku tukanaynay dadku dee sidanba maahayn iminka wuxuu doonay aan noqotayse iminkaa looga salaad badan yahay dibaddaan ku tukannaa
dee halkaas yaan anigu yaan odhan lahaa dhankana dee wuxuu yidhi baabuur inoogu yeedh baabuurkii buu soo kaxaynay waan raacnay nin farsamo yaqaan ahaayoo carab ahaayoo halkan joogay buu u yeedhay rabiish inoogu yeedh buu yidhi waan israacnay baabuurkii waan kaxaysanay ushaan fuulay sheekh halkan fadhiisa waabaan kugu tirsanay tabar mahaye halkan soo fadhiisa buu yidhi sidaan suu raacay bankaasoo waagii dadka la siiyo mashaariica laga sameeyey wajaale yaan meel yeelo tegno ku nasanno kolkaasaan mashaariicdan halkaas intaana ree hebel baale intaana qolo dhowr iyo toban oo annagaala baan idhi halkana mashruuca biyana waa dhulkan biyo lama yaqaano beer lama yidhaahdo beer hanan biyo lahayne haddaadu mashaariic iyo mashruuc samaynayso meel ilmaha ilmihiisa meel biyo leh wax ka beera buu yidhi tani maaha ilaahay roobkiisa halkan maalin halkan buu ku shubay maalin halkaas buu ku shubay halkaas dardaaran buu halkii u soo soconay masaajidkii baan tagnay casarkii oonan anagu kuma xidhanine laga soo baxay iyo natujiyey oo kaco kolkaasuu yidhi meeshani dee cidlada sidani aqaladiinniina sidaasaad u caddayseen ay u qurux badan yihiin masaajidkiina waa kan meelaad ku tukatiin aan laadihiine ayar baan haystaa waxaan doonayaa inaan dee meel yar uun ku dhiso oo masaajidka haddaad wax qabanaysaana wada dhisan oo dee wixii baan inagu wareejini haddii kalena dee anigu la noqoni maayo waan soo niyoodee dhinac meel yar umaan ka dumin oo dee intay doonaa qaatay aan ku beerin waan kula dhisaynaa baan yidhi waan dhisaynaa waayahay kolkii arrintaa lanoo dhiibay baan idhi yani waan joogaya wajaalaan deganahay may maad raacaysa halkan aan nimidnoo wixii lacagtii baan qoriyey iyo alaabiya dee waxaan lagu dhisayay siinay intii lacagtii oo haddana waan noqono halkii baan tegnay way iscanaanteen oo intii baa lacag lagu rayoo kolkaan tegnay meeshiian gallay unbaa iyagoo dee haanbaag lacagtii ku haya oo laba nin unbay yidhaahdeen sheekh cali wixii daan hayna waa kan ee nagala wareeg waa ahaa aqalkii inantiisoo halkii abaan tegnay kolkaasuu iyo yidhaahdeen lacagda intaa laeg baan ururnay meeshiina waan dhisaynaa diyaar baa loo yahay kolkaasuu yidhi wixii lacagaana u wareejay wixii kale ee aan qori ku geynina isaguna u wareejo anna waxaan hayay waxaa weeyaan sidii baa masaajidkii lagu dhisay iminka dee malaha 5 goor iyo 6 goor baa la bedelay yaa dharaartaasaan dee annagu sheekha israacnay dee cilmi isagu bad buu ahaayo xasuusubnaa waxaasuu yidhi ma jirte waxaasi wuxuu yidhi faa'iido taasaa imi wajaale iminka dee kuwa kaleba lasii dhisa ama kiibaa 5 goor halkaa miska jaamacaas yaan isku raacnay dharaartii dambena waan soo celiyey shaqadii halkii bay ku dhammaatay kolkaasuu yidhi waan kuu duceeyee kitaabkan dalaa'ilka aqri oo qaado dee waaban ku ciyaara ma halkaa dee nabadgelyo intaasaa iyaga isku kaaya dambaysay dee sheekh cali sade ilaa jigjigaya dadkii joogayna warka dee waxaasaa la yidhi intaan anigu u joogay waan israacnay waxaasaa la yidhi sade sheekh cali warkiisa laguma koobi karo sheekh cali wuxuu ahaa qof aad iyo aad iyo aad aanan koobi karaynin iyuu ahaa ilaahay ha u naxariisto sheekh cali jawhar oo ahaa aqoon-yahan iyo caalim ummadeed oo bulshada soomaalida wax badan taray